قلي وان لا وسنقلي عرقاوي إذا كان كبحي إذا كان صارين إذا كانت كلها لو تلي أدشين بدنا كمان ما هذي وانا أرنان قولها كم ذهين ده كم ذهين واحد تكتين علبه شربا قبستين واحد ترى هذين دقاق بكو باقدين ورسول دقاق كم دقاق هذين قرب ماذا بدو نعاوية وعجوا اسمه قانون لي قول لنا نعاوية ولا ما قارن وحد الله أنا كلية عرقبة كل ذهين اسمه كحوم يسين عقف يقول لنا عقف وكو اسمه خد السنة عرقبة دي من وصل الله والميسان أما ده ذيك دي أما شرطان وتجا أما علي السلام وتجا أما وار السلام وتجا أما عثمان محمود وتجا فرد الله يسوع يلا سوف عن شيء بدك خالي لنا لقيا وين أنا كدر سنو يعني علبو يبرنا يعني كدر سنو لقيا واه ما تصعده كونا قعدت أنا كوهنا أكمل متهب يجدود أي كم متدب قرح لقيا وكوا دب حدا تشوي ذن وصوف ذن باسكولد قعدت أنا كل جدونا علبو يبرنا بقى ما تصعده ما تصعد قعدت أنا كل جدونا حدا كوا تودون تنا وحنا كوه لسان أما ترتكب كسور صدا أما رتاك كسور صدا نوري ثيتكي أفريقيا ثيتكي كلها قرتين يقول قرأها أفتح حدين ونقنا ماشي يالين وأخذوا يوانا نحن تجينا هدفتوا يبرمبا حد أنا وحنا قصوا هاي شيدها لون وذرة يدب قرح أوليال نكاس وانين الساقة مقالة عرقابة دولات كيدان جوغابو يلي دب قرحي وحان جوغابو يلي dhowr madaraan joogaa buu yiri waa deegaano hadda ay ku sugan yihiin sidaan wada ogsoonahay ciidanka si khaatumo waa duleedka magaalada Ceergaabo ee xarunta gobolka Sanaag weeye waa maqlaysana wuxuu yiri warsangariyow iyo hartiyow magaalada kuma soo laabanaysaan iyo wasaad uga baxdeen magaalada ku soo laabanaysaan ma aha buu yiri danaysta balle haddaad xataa isku daydaan oo bistoolad aad soo ridaan eelbuux iyo sidoo kale deegaano badan jila jiidali baan qabsanaynaa buu yiri 200 kilomitir meel jirtuulay waan qabsanaynaa 200 kilomitir waagii hore ayaa la yaabanayn ay lahaayeen meesha la yiraahdo garow dusheeda ayaan qabsanaynaa oo annaga askaro Ingiriis ayaa na siiyay hadda hawshu wayba ka sii dartay oo gobolka Sanaag oo dhan baan qabsanaynaa bay dhaheen Ceelbuux waa meeshii maalin weyn warsagari ku shirayay waan dul istaagi doonaa waxaa sidoo kale tamid iyo labo ka dul istaagi doonaa maxaa ka hirgalay qodobadii lagu shaaciyay shirkii Ceelbuux ee warsangari maxaa ka hirgalay xaggee ku dambeeyeen hartigii magaalada duleedkeeda ku sugnaa ciidankii SSC awi iyadana waan dul istaagi doonaa waxaan dhinaca kale to iyadana mid iyo labo aan ka dul istaagaynaa odayaashii deegaanka Dawacaali ee gudaha dawladda deegaanka Soomaalida waxay soo saareen bayaan macnaha warmurtiyeed bay soo saareen aan garan waayay inuu nabadgeliye yahay oo warmurtiyeed nabadeed yahay iyo mid colaadeed inuu yahay waxaan u malayn intiina badan inay baraha bulshada ka aragteen warmurtiyeed nabad markii la soo saari waa la yaqaanaa wadadiisa markii colaad la soo saarina wadadiisa waa la yaqaanaa waxaan la yaabay oo haddaad dhammaantiin haddaad dhegaysataan waxba ka fahmaynin bay soo saareen oo u muuqdo oo aan islayno mid u muuqato aan islayno wali ay ku indhaadeg yihiin kooxihii abaabulnaa ee dhinaca Soomaaliland laga soo gudbiyay iyadana waa dul istaagi doonaa xogo badan oo ka soo kordhay soo dhawaada muuqaalka like saara aragtidiina noogu reeba qaybta commentiga aynu ku bilownay magaalada Ceergaabo ee xarunta gobolka Sanaag wali waxaa ka taagan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo dhinaca Soomaaliland iyo sidoo kale dhinaca SSC Khaatumo iyo dhinaca kale ee beelaha warsangari هي هرتي وينابا ciidamada halkaas ku sugan ee duleedkeeda ku wada sugan ee agagaarka magaalada Ceergaabo ku sugan mar walba inay isfara saaraan oo dagaal la isku fara saaray waa mid suurtagal ah ciidankiisa si Khaatumo 8 kilomitir buu magaalada u jiraa kuwa Soomaaliland way u muuqdaan way sarkaan amar baysan haysanin oo ah gala dagaalka baysan haysanin waxa amarka bay hadda haysanin huburuursi baa socda oo ayadu waa xiro colaadeed weeye go'aanka la wada qaatayna
beelaha isaaq iyo beelaha harti ay kala qaateenna waa un dagaal haddiiba magaaladii la wada lahaa la wada deganaa maatidii laga soo qaxiyey oo reer sheekh isaaq maatidii ay soo qaxiyeen guryihii ay magacyo ku qorteen waxa weye la biliqaystay qaar la gubay dhibaatada laga shaqeeyey aakhirkeedu waxay noqonaysaa un magaalada ceergaabo in dee madaafiic lala dhaco ninkii markaa ay u hadhow dhisanayeen inta xataa taaganee guriga la dumiyo oon waxba la ysku reebanin bay aakhirkeeda u muuqataa waxaa intaas sii dheer dhinaca hartigu way aamusan yihiin oo hawshooday hoosta ka wataan laakiin dhinaca isaaqu dee ninkaad maqlayseen oo kaleetaa ka dhex buuxo baraha bulshada mar walba taagan ninkaad maqlayseen waad maqlay ilaa hebel guduud iyo waxaa weeye meesha la yidhaahdo jeedale iyo ceelbuux iyo dhulkaasoo dhan baan qabsanaynaabui wuxuu intaas sii raaciyey oo uu yidhi weliba haddii ay bistoolad ugu soo dhacdo hal bistoolad feer adiga bistoolad xaggaanada hadday dhow usoo dhacdo waa wallaahi waa bilaahi waa tallaahi buu yidhi inaan qabsanaynaa buu yidhi oo deegaano badan aan qabsanaynaa waa wiil ismahadiyey sababtoo ah dagaalka hadda ceergaabo xilliga ay ka soo baxeen 2 bilood bay hadda kusii dhadhowdahay haddayban dhanayba hartigu markii ay soo baxeen ilaa iyo hadda ayuu dhaxanta waxa weye ka seexanaya guryihii hartiga oo weliba qaarkood la biliqaysto oo jeengadihii albaabadii laga fujistay marka inuu yidhaahdo magaalooyin kale oo harti baan qabsanaynaa de waa wax iska caadi oo hadda way u gashay oo hadda 2 bilood way u gashay oo wax buu ismooday wixii horena wuu ku hilmaamay wuxuu wixii hore ku hilmaamo ayuu hadda samaystoo helay hartigiina dee iyagaa isdaba waxaynayey oo iyagiibaa waxa weye iska daba wareeganayey oo dhexdooda madmadow ku jiray oo puntland oo iyada naftirkeeda dagaal buuraleyda gobolka bari ku qaado kooxda khawaarijta ku qaaday iyo hawlahaas baa waxa weeye xoogaa xagaldaaciyey maamulka puntland baa dee labada dhinacba lagu tiirsanaayo dagaalka hadda isasi khaatuba uu ku tiirsanaa maamulkii puntlandna halkaa iyo buuraleyda gobolka bari baa la aaday oo dagaalkii khawaarijta la aaday walow hadda lasoo gabagabayn doono maalmaha igu soo aadan oo guulo waaweyn ay puntland ka gaadhay halkaas baa laakiin dee awooddii dhaqaale iyo awooddii ciidanba iyo awooddii hubeedba halkaasu jiraa marka waxay ka faa'idaysteen marka puntland oo buuraleyda dagaal ku qaaday iyo nimanka la yidhaahdo dhulbaanti iyo warsangeri oo xoogaa madmadooba dhexdooda ka jiro ayay ka faa'idaysteen magaalada ceergaabo markay qabsadeen waxaa la yidhi ceelbuux baan u soconaaba jidaliyi ceelbuux iyo dhulkaasaan u socnaa waxaa la yidhi waxaan qabsanaynaa dhulka warsangeri iyo naaleeye axmed labada ay leeyihiin ayaan qabsanaynaa ilaa iyaga ceergaabo dego u badani hartiga markii la yidhahdee halkaasaan qabsanaynaa baa la yidhi waliya xaal ninkaas hadda hadlaya anugu mid umaan leh iyo beelaha isaaq oo dhanba dad badan oo isaaq ay daawada qaar meeshaan jooga ila joogo oo mar walba dacwadii dhigtaa jira qaar xaggaas iga soo caayo oo waxa weeye soo qoro oo commentiya soo qorana waa jiraan marka isgaarsiiya idinku anugu mid umayna leh magaalada ceergaabo hadda waa xero dagaal xero lagu faantamana maaha in la wada leeyahayna idinkaa qiray inay harti ka baxeen oo ka maqan yihiinna idinkaa qiray inay guryihii aada biliqaysateen oo dhibaato geysateen idinkaa qiray oo muuqaaladii baad ka soo duubteen adkaysi lahaada magaaladan waa la isku fara saari doonaa waa hubaal hartina cabsi uma maqnee huburursi buu inagu maqan yahay taasaan horta beelaha isaaqaan leehay oo ninkaas aflagaa doonaya aan ugu jawaabaya waynu eegi doonaa walow gaabis badan uu jiro dhinaca hartiga laakiin huburursigu waa socdaa iyo diyaargarowgu waynu eegi doonaa hadduu alla idmo dhinaca kaleeto magaalada dawacaaley tuulada dawacaaley oo ka tirsan degmada xarshin ee dowlad deegaanka soomaalida gobolka faafan ka tirsan ee lagu dagaalamay ee maleeshiyaadka hubaysan ee beelaha isaaq ee dhinaca hargeysiya laga soo gudbiyey ay ku dagaalameen ee deegaanka ay amni darrada ka abuureen waayahan dambe baaqaa horta iska soo daba dhacayay dagaal lama dhicin oo dagaalkii lagu soo afjaray halka maalin ahaa ee kooxdii laga soo wax la diliyo wax la qabtiyo wax laga tallaabiyo xuduudda laga dhigay wixii ka dambeeyey odayaashu shirar bay ku jireen shir waxay soo saareen maalmo ka hor oo beelaha arab bay ahaayeen arab shirkuu soo saaray waxay ku akhriyeen khasaarihii iyo dhimashadii iyo waana la xasuuqay iyo iyadoo dhibaatada naloo geystay haddana nabad ayaan rabnaayo dowladda deegaanka waxaan uga fadhinaa dadkii la xasuuqay sababaha loo xasuuqay iyo wax noocaasay soo saareen odayaal kalaa ka daba hadlay oo maanta hadlay odayaashaas waxay dheheen annaga arab baa noo yeedhay oo reer sheekh isaaq baan nahay reer sheekh isaaq
ayaan nahayo arab baa noo yeedhay bay dheheen. hadhahaane war-saxaafadeed bay iyagana soo saareen. war-saxaafadeedkay soo saareen waxaan kala garan waayey inuu nabad yahay, inuu hurin colaadeed yahay, iyo inuu calaacal yahay baan kala garan waayey. waxaa la rabaa markaad nin weyn oo odaya tahay, haddii meel dhibaato ka dhacdo laba xaalaa waxawey kula gudboon. waa midda koowaada waa dagaal, inaad wax iska dhiciso oo dagaalanto haddaad wax isku haysaba, iyo inaad nabad qaadato. labadaa wado waxaan ahayn dhaqan laguma yaqaano. nimankan beelahaysaa dawacaley baan ka hadlaynaa baa layidhi. waa saxa ka hadlaan, waa Soomaali haba ka hadlaan. waxay ku wareegeysteen dadka waa la xasuuqay, dadkaasaasaa la yeelay, dadkaasaasaa la yeelay, dadkaasaasaa la yeelay. weli waxaa nagu soo dhacaya ciidankii new booliska yaa waxa weye kusoo qulqulaya dawacaley. ciidankii new booliska ayaa meel hebla tagay, ilaa 8 tuulo oo deegaanka ku yaala ayay ciidankii new booliska tageen. waxa weye buulal baa la dumiyey, buulal baa la dhisay, weli waxaa socoto wax dhisitaan. war ciidanka new boolisku haddaysan tegin dawacaaley, oo aysan tegin baligubadle xuduudiisa, oo aysan tegin tog wajaale, oo aysan tegin waxa weeye boorama, oo aysan tegin ilaa iyo xuduudda dheer oo dhan aysan tegin, yaa tegi lahaa? soo ciidankii deegaanka maaha? soo ciidankii new booliska amniga dhulka ilaalinayay maaha? soo shacabka iyo dalka iyo xuduudaha iyagu mas-uul kama saarno? yaa tegi lahaa? ciidanka new booliska xaggay ka imaadeen? waa hurin colaadeed baan anigu u arkaa. tuulooyinkan la dumiye la sheegina, meel haddii laysku qabsado waa waajib dowladdu marka kore inay dumiso, haddii meeshu aysan magaalo sii dhisnayd ahayn. buul baad meel ka dhisatay, waa lagugu qabsaday, ma dhisita kartid baa lagu yidhi, qolo kalaa kugu qabsatay. inta laga heshiina go-aan laga gaadhayo waa la dumin, waa la dumin. sababtoo ah isaaq besa maaha. magaalada goday agteeda hadhaawo meesha la yidhaahdo, dhowr sano ka hor laba beelood baa isku dagaalamay. labadii beelood oo isku dagaalamay baa ciidankii new booliska intay imaadeen beel ka mid ay gam ka siiyeen. waa ogaadeen yaa dadka la laynayo, gam bay ka siiyeen, rag bay laayeen. raggii markii la laayey oo shacab badan la laayey, magaaladiina waa la dumiyey. tuuladii laysku haystay, meeshii laysku haystay waaba la dumiyey. waxaa la yidhi inta laga soo heshiinayo qof dhisi karaaye ma jiro, qof dhisi karaaye ma jiraa la yidhi. waa loo hogaansamo waa yahay baa la yidhi. meesha la yidhaahdo laanqayr iyo inta udhaxaysa aan dhahna weliba aad waan maray, meesha la yidhaahdo dhanaan iyo inta qabdaha udhaxaysa iisoo sheegay idinkaa garanaye. tuulo waxaa jirta barkadaheedii la dumiyey oo guryaheedii oo dhan la dumiyey. waa la isku qabsaday. ogaadeen baa deganaa, wax deganaa ogaadeen baa hayay laga duminayay. waa la dumiyey tuuladii oo dhisan oo baraagihii la dhisay oo weliba shamitaysan baa cagaf intii la geliyey baa la isku dumiyey. waxaa la yidhi inta laga heshiinaya lama dhisi karo. dowladdu intaasoo meel bay dumisay oo ay tiri deegaameyn cusub oo laysku haysto lama ogolo. deegaameyn cusub oo aan laysku haysanin haa, oo dadka deegaanku aan isku haysanin, laakiin haddii laysku qabsanayo lama ogolo. deegaameyn cusub oo laysku dowladdu mar hore soo saartay boolisiga dhinaca jar, waagii u imaaday oo uu soo saaray. maxay tahay deegaameynta cusub marka? waa lagaa duminaya marka. buulkaa dhista waa la duminaya. ciidanka new booliskuna way tegayaan. waa xaq, waxa weeye sharci bay u leeyihin inay tagaan. dastuurkaa siinaya, waajibkooda weeye, waxay u dhaarteen weeye. laakiin in waxa weeye adigana lagu dilo ayagana la dilo ayaa meesha ku jirin. markay intay tageen ay buulashii dumiyeen oo waxa weeye ay dheheen meeshan maya, ciidankii new booliska hadlayseen, saraakiishii baa hadlayseen, hogaankii nabadgelyada disheen, dadka hadlayseen waxa weeye ruwa bay ahaayeen. soo ciidan dowladeed ma ahayn. dowladdu marka maaday ku dhowranaysaa? kuma dhowranaysa marka. adna waxbaad dili, adna waxaa rabtaa inay amni meesha ku joogto? no. adee ninkaa dilaysa wiil iyo hooyo, waxa weeye hooyihi aabbaa dhalay, waana sarkaal dowladeed, dowlad baana ka dambaysa. adigana waa lagu dilayaa. sababta waxaa tahay argagixisaata. haddaaba dowladdii kasoo horjeedo, oo laamihii amniga kasoo horjeedo, oo waxa weeye dadka amniga ilaalinaya kasoo horjeedo, mas-uul ka saarnaa kasoo horjeedo, oo nidaamkii dowladnimadii la isla laha kasoo horjeedo, oo aad diido, argagixisaata. maxaa dhaantaa? kooxdan argagixisa la leeyahay maxay dhaabaan? soo nidaamkii dowladnimadu may diidin? ma dhib kalay sameeyeen? dhib kale may samaynin. nidaamkii dowladnimaday diideen. ciddii kasoo waxa weye nidaamkii dowladnimada socotana way dileen sooma. kuwaasaad marka adigana la mid tahay. waxba isma dhaantaan. odayaasha marka waxaan leeyahay, baaqina aada soo dirteen, warsamurtiyeedkiina aad soo saarteen isaaqow,
nooma cuntabin haddaan nahay dowladda deegaanka soomaalida horin colaadeed baa inugu jira kibir baa weli inugu jira inaad waxlaysaan baad weli yaad ku hanjabaysaan nidaamkii iyo dowladnimadii baad diidan tihiin adeer markaad nidaamka iyo dowladnimada soo ogolaataan markaasaa laga hadlaya midda labaad baaritaan khuburaha loo dira dahdeen oo heer federaal ha loo diro wax loo diraya ma jiro meesha khubura iyo waxa lagaba yaqaan Ethiopia khuburaha hadii meel loo dirayo Tigray 2 milyan laga diray ha loo diro Ahmara 2 milyan laga diray ha loo diro Oroma maalin walba 500 kun laga diray ha loo diro Hayla Maryam ra'iisul wasaarihi Abi ka horeeyay dadku leeyahay ha loo diro ogaadeenkii 2 milyan hay la diray ha loo diro khubradu maxaa dadkii hore ma ka duwan dad kama duwana ciidanka iyo booliska la leeyahay waa la yaqaanaa waa ka tacsiinayna ilaahay jannatul firdaws ha geeyo kuwa shacabka iyo kuwa argagixisada ee ishuwisnaa ee meesha lagu leeyahay dawcalayna ilaahay iyagana waa Soomaaliye fikir khaldan oo bay wateen jannatul firdaws iyagana ilaahay ha geeyo inta labada dhinacba ku dhaawacantayna waxaan ilaahay uga baryaynaa caafimaad degdeg ah inuu siiyo waa ummad Soomaaliyeed oo waxa weeye ma inkirsanin laakiin ba meesha ku jirta deegaanka Soomaalida ciidan buu leeyahay dawlad buu leeyahay waxa way ogaadeen ka sheegaysaan ba maamul ka qarni mar baa idinka idin dhibnay oo wadi weydeen oo waxa wad kala dhaqaajin weydeen in ogaadeen uu madaxweyne ka noqdana anagu ogaadeen ka umaana dooranin Ethiopia ku soo samaysa oo waxa way iska kaan ilaalinayso oo bal nimankan ha kaasi jeedaan waxaan anagu dooranay ma aha aduguba waad raasatay waad soo weeday hase ahaatee waynugu wada filaayo waad ku soo nabada caanamaasheen oo degmooyin baad ku hesheen oo tuulooyin baad ku hesheen oo waxa weeye inaad deegaanka ka tirsantihiin baa la idin qirtay oo maamul baad hesheen oo nolol baad ku hesheen Soomaaliya ilaa nolol kama jirin nolol baad ku hesheen nolosha aad ku hesheen ha isku qoonsanina anigu saaqtaasaan leeyahay waynu eegi doonaa wixii ka soo kordho